بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين أما بعد هدي إلهي هذا سبحانه وتعالى waxaan ka bilaabaynaa meesha kitaabka lagu magacaabo arbiciinka ama al-arbiciin waa kitaab axaadiista nebiga qayb ka mida markaa ku soo aruursan taasoo ka hadlaysa waxyaabo fara badan oo qofka bini aadamka ama muslimka wanaag ugu horseedi kara qofka muslimka waxaa laga rabaa marka kitaabkan barashadiisii ku dhaqankiisa ilaahayna waxaan ka baryaynaa subxaana wa tacaala inuu noo noqdo kitaabka mid saa'iqa oo noo kaxeeya dariiqa mustaqiimka iyo dariiqa jannada kolley markaan kitaabka dhexdiisa gaarnan arki doonaa sida uu u hadlaayo alxadiidu alawal xadiidkii koowaad can amiiri lmu'miniina mu'miniinta amiirkoodii ayaa laga wariyey abi xafsin ahaa waa cumar ibn alkhitaab radia allahu canhu ilaahay ha ka raadi noqdee cumar ibni khitaab ayaa laga wariyey qaale wuxuu yidhi cumar samictu waxaan maqlay rasuula allahi sala allahu calayhi wasalam rasuulkii ilaahay ayaan maqlay naxariis iyo nabadgelyo korkiisa ilaahay ha yeele oo yaquul dhahaya innama alacmaalu camalka oo idil binniyaati niyaadka ayay ahaayeen iyo niyooyinka ayay ka ansaxaan wa innamaa likulli imri'in shaksi walbaana wuxuu leeyahay maa nawa wixii markaa uu niyeysta faman kaanad qofkay ahaata hijratuhu hijradiisa ilallaahi ilaahay dartii ay xaggiisii wa rasuulihi fa hijratahu hijradiisu waa ilallaahi wa rasuulihi waman kaanad qofkaysa ahaata hijratuhu hijradiisa lidunya adduunyo yusiibuhaa inuu asiibo uu helo aw imra'atin ama naag yankixuhaa uu nikaxsanayo fahijratuhu hijradiisu ilaa maa haajara ilayhi wixii xaggiisa uu u hijrooday ayay markaa tahay rawaahu waxaa wariyey xadiidka imaam almuxadisiin labadii imaam ee muxadisiinta ahaa waa abu cabdullaahi moxamed ibni ismaaciil ibnu ibraahim ibnu mugiira ibnu bardad albukhaariyu ahaa iyo ka labaad oo ah abulxuseyni muslim ibn xajaaj bin muslim alqushayriy annaysaabuuri oo loo nisbeeyey fii saxiixayhima labadooda saxiix ayay ku wariyeen alladayni labadaasoo humaa ayaguba asaxu lkutubi kutubaha kuwa ugu saxiixsan ah almusanafati ee markaa la sanifay xadiidku wuxuuna tusayaa niyadu inay tahay meesha laga fiiriyo tasxiixa acmaalaha mar walbay niyadu wanaagsanaata camalku waa wanaagsanaadaa mar walba oy niyadu fasahaadana camalku markaa waa fasahaadaa sidaa darteed ayaa loo baahan yahay qofka inuu wax walba uu niyeysto khayr iyo wanaag uu ka dhigo waxaana loola jeedaa qofka inuu sameeyo waxa uu samaynayo khawfan min allahi tacaala cabsi ilaahay xaggiisa uu uga cabsanayo inuu u sameeyo iyo cibaadada addoonkaa taaca iyo inuu shayga uu dalbayo uu u dalbo inuu janno ka helo iyo thawaab waa cibaarada tijaarada sidaa darteed waa qofku inuu wax sameeyo asagoo xishood alle ku jira gutana xaqa ilaahay ku leeyahay subxaana wa tacaala sidaa darteed ayuu rasuulku yidhi innama alacmaalu binniyaat camalada oo dhan niyada ayay ahaadeen qof allaala qof kastana waxa uu leeyahay wixii markaa uu niyeysto qofkay niyadiisu ahaato ilaahay dartii qofkay hijradiisu ahaato ilaahay dartii iyo rasuulka hijradiisu intaa ayay ahaato thawaab fiican ayuu ilaa xaggiisa ka helaa subxaana wa tacaala wa innamaa likulli imri'in maa nawaa shaksi walbaa wuxuu niyeystow leeyahay ee faman kaanat hijratuhu ila allahi wa rasuulihi ilaahay iyo rasuulkiisa xaggooda oo sababta uu uga baxaya magaalada maka oo u aadaya madiina hijradaas sababta uu u galay hadday tahay ilaahay dartii iyo inuu u gargaaro rasuulka hijradiisa taa ayay ahaato niyadiisa markaa loo thawaabina waman kaanat hijratuhu lidunya qofkiisa qaradkiisii adduunka uu ahaada iyo ujeedadiisa iyo inuu helo naag uu nikaaxsado fa hijratuhu ilaa maa haajara ilayhi wixii uu u hijrooday ayuu markaa leeyahay waxaad ogaataa ikhlaaska
mararka gobol ka mida inuu u soo banbaxo aafaad cajaa'ib badan. qof kastoo camalkiisa uu cajabiyo camalkiisu waa bura. qofkii isweynaysiiya saas oo kale. maca daalika waxaa la rabaa qofka waxa uu falaayo ama uu dalbayo adduun iyo aakhira waxay ahaadaanba in niyo fiican oo khaalis ahoo ilaahay dartii uu u sameeyo markaa ay ka ahaato. xadiidku wuxuu tilmaamayaa ama waa axaadiista ay ku bilowdaan kutubaha dhammaantood, waxaana loola jeedaa qofka wax baranayo waxa aad baranaysa ka dhig camalkaaga ama niyadaada mid ilaahay dartii ah. qofka kitaabka qoraya saas oo kale wax walba oo la rabo in la sameeyo in niyad fiican markaa lagu sameeyo. inama alacmaal marka la leeyahay inamaadaa waxay tilmaamaysaa waa xasri, waxaa loola jeedaa wax kale maba ahane camalka meesha qofka laga fiiriyo ikhlaaskiisa iyo wanaagiisa waa niyada. inama alacmaalu binniyaat, niyada ayay markaa ahaatay. wa inamaa likulli imri'in maa nawaa, qof walbana wixii uu niyeysta ayuu markaa leeyahay. camalada meeshay ka ansaxaan, meesha laga aqbalo, kamaalka, nusqaanta, kulli meelaha laga helo waa niyada. qof walba niyadiisa sida ay tahay ayaa markaa lagu jaasinaa. wax walbana niyaa loo baahanya qofku inuu la yimaado. wamaa umiruu ilaa liyacbudu allaha mukhlisiina lahu ddiin. markaad tukanaysa niyo la imow, markaad soomaysa niyo la imow. wax walba niyada ayay markaa ka ahaatay hijrada. qofka uu samaynayo waxaasoo dhan waa inay ilaahay dartii ahaadaan subxaana wa tacaala. haddii kayrkiis ay ku jiraan qofku hawaab markaa ma laha. marka qofka waa inuu niyada aad ugu dadaalo khayrkeeda iyo wanaaggeeda. maxalkeedana waa qalbiga, in lagu talafudo ama lagu dhawaaqaana markaa lama ogola. marka qofka muslimka waa inuu xaaladaa ogaado, waxa uu samaynayo oo dhanna niyad fiican uu ku sameeyo. alxadiid athaani, xadiidkii labaad, can cumar ibni can cumara radia allahu canhu aydan waxaa loola jeedaa waa noqod ama mar labaade. qaale wuxuu yidhi baynamaa waqti naxnu anagoo juluusu fadhina cinda rasuulillaahi, rasuulka ilaahay agtiisa sala allahu calayhi wasalama, daata yowmin maalinna ay u saaxiib tahay. iطalaca calayna waxaa nagu soo taalacay korkeenoo nagu soo baxay rajulu nin shadiidu bayaadi hiyaabi, dharkiisa caddaantoodu ay aad u daran yihiin. macnaha nin dharka uu watay aad u nadiif yihiin oo aad ay u cad yihiin ayaa nagu soo baxay anagoo koox saxaabo ah aan nahay oo nebiga la fadhino. iطalaca calayna waxaa nagu soo baxay dusheenna rajulu nin oo shadiidu bayaadi hiyaabi, dharkiisa caddaantoodu ay daran tahay, shadiidu sawaadi shacri, timihiisa madoobaantooduna ay aad u daran yihiin. laa yura aan lagu arkayn calayhi korkiisa aharu safari, safaraadkiisa. nin bannaan ka yimid oo musaafira ma aha. ileen hadduu musaafir ahaan lahaa basaas iyo dhib iyo wasaq iyo waxaa ka muuqan lahayd, tii ma laha. walaa yacrifuhu mina axadun, axad annaga naga mid ah oo yaqaanoo aqoonsanaya ninkaana ma jiro. macnaha wuxuu cumar ula jeedaa ninku ma aha nin magaalada degano, hadduu magaaladu degan yahay waa la aqaan lahaa. haddana nin musaafirna uma ekoo bannaan ka yimid, hadduu bannaan ka imaan lahaa aahaartii safarkaa ka muuqan lahayd. labadaba ma aha. xataa jalasa ilaa uu la fadhiistay ninkii ila annebiy, nebiga ayuu la fadhiistay sala allahu calayhi wasalam. faasnada wuxuu ku tiiriyey rukbatayhi, labadiisa jilbood, ilaa rukbatayhi, labada jilbood oo nebiga ayuu saas ugu tiiriyey. wa wadaca wuxuu saaray kafayhi, labadiisa kafood waa gacmaha inta lulata, calaa faqidayhi, labadiisa faqadood ayuu saaray. calaa faqidayhi yaa loo celina. qolaa tiri nebiga labadiisa cajarood ayuu saaray, laakiin waxaa ka wanaagsan in la dhaho cajarooyinkiisa ayuu ninku saartay. aadaabtana taasaa markaa ku fiican. wa qaala, ninkii wuxuu yidhi, yaa muxammedow akhbirnii can ilislaami, islaamka iiga khabarba. islaamka maxaa la yidhaahdaa ii sheeg. faqaala rasuulullaahi, rasuulkii ilaahay wuxuu yidhi sala allahu calayhi wasalam, alislaamu, islaamku waxa waaye an tashhada, inaad qirta an laa ilaaha ila allahu wa anna muxammadan rasuulullaahi. waa inaad qirta alla xaqnimo lagu caabudo inuusan koonka mawjuud ku ahayn ilaa ilaahay maahane subxaana wa tacaala. muxamedna inuu rasuulkii ilaahay yahay oo ilaahay soo dirsaday, risaalo loo doortoo aamin ah, ummadda loo soo diray inaad qirto waayo. wa tuqiima asalaata,
salaada aad hagaajiso watu'tiya azakaata sakadana aad gudato watasuuma ramadaankana aad soonto wataxuja albeyta beydkana aad u xajisood u qasada in istadacta haddaad kari karta ilaahi xaggiisa sabiilan jid haddaad jidkiisa awoodi karta inaad xajkana aaddo intaa waaye islaamnimada qaala ninkii wuxuu yidhi sadaqta run baad sheegtay runtaa waaye muxamedow facajibnaa waan la yaabnay ayuu yidhi cumar lahu ninkii yas'aluhu wayusadiquhu waa rumaynaa waana su'aalanaa su'aalashadiisa iyo rumayntiisaan la yaabnay ilaan waa nin arday ah waa nin hadda su'aal weydiiyey oo wixii loo jawaabo inuu qaato la rabay haddana sadaqta ayuu yidhi nin yaqaanu iska dhigay cumar tii baan la yaabnou dhahay facajibnaa waan la yaabnay lahu ninkii yas'aluhu wayusadiquhu su'aalashadiisa iyo rumayntiisa qaala wuxuu yidhi haddana faakhbirnii can iliimaani haddana iimaanka iiga khabar bal oo iimaanka wax iiga sheeg qaala wuxuu yidhi nebiga an tu'mina biاllaah waa inaad ilaahay aaminta inuu ilaah keligii yahay wa malaa'ikatihi malaa'igtiisa aad rumayso wa kutubihi kutubtiisa aad rumayso samaawiga cirka laga soo dejiyey wa rusulihi rusushiisa inaad rumayso iyo walyowmi alaakhiri maalinta dambe ee aakhira inaad rumayso wa tu'mina inaad rumayso bilqadari qadarkana inaad rumayso khayrihi wa sharihi khayrkiisa iyo shartiisa inay xagga ilaahay ka yimaadaan subxaana wa tacaala qadarka inaad rumayso wax walba oo qadar ah oo dhaca hadday shar tahayna inaysan meel kale kaaga imaanin ilaa jiho alla maahane hadday shar tahay iyo hadday khayr tahay labadaba qaala ninkii wuxuu dhahay sadaqt runtaa waaye haddana qaala wuxuu yidhi ninkii faakhbirnii ii sheeg haddana can ilixsaani islaamkii iyo iimaankii ogaadaya ixsaanka wax iiga sheeg qaala wuxuu yidhi nebiga an tacbud allaha waa inaad ilaahay caabudaa kaannaka taraahu sidii adigoo arkaya oo kale u caabud ilaahay waayo fain lam takun haddaadan ahayn taraahu mid arkaya fainahu yaraaka ilaahay asagaa ku arkaya oo kuu jeeda subxaana wa tacaala haddaadan adi u jeedin asagaa ku arkayee mar walba iska dhig ilaahay mid adi u jeeda oo kale sababta waxaa loola jeedaa qofka aad u jeeddo hortiisa dhibaato kama samaysid mana caasisid saasoo kale markaa u sameey ilaahay qaala ninkii wuxuu yidhi faakhbirnii waxaad iiga khabartaa haddana can isaacati saacadda qiyaamo goormay dhacaysaa ii sheeg haddana qaala rasuulku wuxuu yidhi malmas-uulu mas-uulka la su'aalaya canhaa saacadda qiyaamo xaggeeda ma aha biaclama mid uga aqoonsho iyo cilmi badan min asaa'ili midka saa'ilka ah macnaa sida adiga saa'ilka i weydiinaysid aad ka tahay oo kalaan ka ahay buu dhahay nebiga ilaan saacadda qiyaamo dhicitaankeeda qof yaqaanaa markaa ma jiro yas'aluunaka can isaacati ayaana mursaaha way ku su'aalayaan saacadda qiyaamo goormay dhacaysaa saasuu dhahay ilaah subxaana wa tacaala yas'aluunaka can isaacati ayaana mursaaha waxay ku weydiinayaan goormay dhacaysaa ee waxaad dhahdaa cilmigeeda ilaahayaa loo celiya subxaana wa tacaala aniga ma aqaana malmas-uulu ma aha midka la su'aalaya canhaa saacadda qiyaamo xaggeeda biaclama mid uga cilmi badan min asaa'ili saa'ilka iyo midka su'aalaya qaala ninkii wuxuu dhahay haddana faakhbirnii waxaad iiga khabartaa ood ii sheegtaa can amaaraatiha calaamaadkeeda waayahee haddaadan aqaanin saacadda qiyaamo wakhtiga ay dhacayso calaamaad aan ku aqoonsan kara inay soo dhowdahay ama ay imaanaysa ii sheeg haddana qaala wuxuu yidhi nebiga an talida alammatu waa inay addoontu dhashaa rabbatahaa rabbatadeeda iyo qofkii u talin lahaa wa an taraa iyo inaad aragta alxufaata kuwii kobaha la'aa alcuraata ee qaaqaawanaa alcaalata ee cayrta ahaa oo faqiiriinta ahaa ricaa ashaa'i ariga raaci jiray yatataawaluuna intay baadiye ka soo baxaanay magaalo yimaadaan oo yatataawaluuna ku faantamaya fi lbunyaani dhismaha iyo sardheerayn ku faantamaya taas haddaad aragta saacadda qiyaamo sug buu dhahay nebiga uma inطalaqa intaa ka gadaal waa tegay nebiga falabiftu waa nagaaday buu dhahay cumar maliyan zaman ayaa nagaaday uma ka gadaal qaala wuxuu ii yidhi nebiga yaa cumarow atadari ma taqaanaa man isaa'ilu saa'ilka su-aasha i weydiinaayey ee ii yimid ma taqaanaa qoltu waxaan idhi buu yidhi allaahu warasuuluhu aclam
maye ilaahay iyo rasuulkiisa ayaa ku cilmi badan. qaala wuxuu dhahay nebiga fainahu jibriilu, war nin caadiya ma ahayne malakul jibriil ayuu ahaa. ataakum waa idin yimid yucallimakum asagoo idin baraya diinakum ay amra diinakum, diinkii amarkii diinkiina idinku asagoo idin baraaya. saasuu u yimid ee nin caadiya ma aha. rawaahu muslim baa xadiiska wariyey. riwaayad kale ayaa tilmaantay intaa kadib ninkii waa iska tegey. rasuulku wuxuu dhahay ruduuhu, warbax ii soo celiya, ka daba taga ninkii soo waca. saxaabadii way kala ordeen, meel kastii xaafadaa la galagalay, ninkii waa la waayey. way soo noqdeen, waxay dhaheen rasuulkii alloon waa weynay. markaasuu dhahay dhaafa, nin caadiya ma ahayne jibriil ayuu ahaa, wuxuuna u yimid amarka diinka inuu idin baro. riwaayadan cumar wuxuu ku leeyahay uma inطalaqa falabistu maliyan, 3 maalmood ayaa lagu fasiraa. waxaa suuragala markuu ninku dhaqaaqay intuusan nebigu dadka u sheegin inuu cumarna baxay. 3 maalmood kabacdi uu nebigu yidhi yaa cumar atadri man saa'il, ma taqaanaa saa'ilkii su-aasha i weydiinayo? cumar uu dhahay maya, ilaah iyo rasuulkiisaa ku cilmi badan. rasuulkana uu yidhi fainahu jibriilu, jibriil ayuu ahaa, waa malakul jibriil. ataakum yucallimukum diinakum, waa idin yimid asagoo diinkiina idin baraaya. xadiidka cajiibka badan wuxuu noo tilmaamayaa ama aan ka fahmaynaa oon ka qaadanaynaa waxyaabo aad iyo aad u fara badanoo na loogaga baahan yahay inaan markaa samayno. cumar ibni khitaab wuxuu yidhi wakhti anagoo fadhina rasuulka agtiisa sala allahu calayhi wasalam, meesha waxaan ka fahmaynaa saxaabadu inay aad u jeclaayeen nebiga, markastana agtiisa ay markaa fadhiyaan ayna rabaan inay ka aadaab qaataan, cilmigana ay ka bartaan. daata yowmin, maalin ay u saaxiib tahay, iطalaca calaynaa rajul, nin ayaa nagu soo baxay shadiidu bayaadi hiyaabi, dharkiisuay aad u cad yihiin. waxaa laga qaadanaa qofku dharkiisa inuu aad u nadiifsado. shadiidu sawaadi shacri, timihiisuna ay aad u madow yihiin. qofka inuu aad iyo aad u wanaajiyo timihiisa. laa yaraa calayhi ama laa yuraa calayhi, dushiisa aan lagu arkaynin atharu safari walaa yacrifuhu mina axad. ninka nin bannaanka yimid waaye, laakiin bannaanka imaasha kama muuqato. ninka nin magaalo ka soo baxay ma ahee, waa la aqoon lahaa hadduu magaalada ka imaan lahaa. intaa ka gadaal ayuu soo socday xataa jalasa ila annebiy, ilaa nebiga uu la fadhiistay. faasnada rukbatayhi ilaa rukbatayhi, labada jilbood ayuu labadiisa jilbood saa u saaray. waa aadaabta qofka loogu talagalay marka uu rabo qof kale inuu su'aalo inuusan gadaal ka soo qaynin, laakiin hortiisa uu yimaado. intaa ka gadaal labadiisa gacmood ayuu faqidooyinkiisii cajarooyinkiisa saartay. saan soo tilmaanay cajaraha nebigana waa lagu fasiraa, laakiin waxaa ka fiican ayaan dhahnay inuu kuwiisa saartay, ileen aadaabta taasaa ku fiican. intaa ka gadaal wuxuu dhahay moxamedow, islaamku muxuu yahay? islaamnimadaana loo tilmaamay inay tahay in la qira laa ilaaha ila allah, in la raacsiiyo muxamedan rasuulullah, salaada oo la hagaajiyo, sekada oo la bixiyo, ramadaanka oo la soomo, iyo xajka oo loo qasta qof walba oo yubaad iyo tabar markaa u leh. ninkii runtaa waaye ayuu dhahay intaa waxaan ka qaadanaynaa islaamka inuu yahay acmaal daahir ah oo muuqato oo laga rabo qofka inay ka soo daahirto. intaa ka gadaal ninkii iimaanka ayuu su'aalay, waa qoladii kala bixisay islaamka iyo iimaanku inay laba markaa kala yihiin. sidaa darteed islaamkii iimaanku waxaa kaloo lagu tilmaamaa wax saas u farqi badan ama farqi u dhaxeeya inuusan markaa jirin. ileen ilaah aayad ayuu ku yidhi qaalat ilacraabu aamanna qul lam tu'minuu walakin quluu aslamna, waan rumaynay hadhihine waan islaamnay dhaha, waayo qalbigiina weli iimaanka markaa ma geline. sidaa darteed ayaa islaamka iyo iimaanka qolada kala qaadaa saas ay yidhaahdaan. fa akhbirnii can iliimaan buu yidhi, haddana iimaanka ii sheeg. iimaanku waa inaad rumaysaa la yidhi ilaahay inuu keligiis yahay, waxdaaniyada asaga mutaystay, qaaliqa koonka abuuray inuu markaa yahay, wax cajis gelin kara uusan jirin, alla xayi ah oo qayuumoo noolaan jiray, haddana noolaana doono inuu yahay subxaanahu wa tacaala. inaad rumayso ka malaa'igtiisa inaysan ahayn owlaad alla dhalay subxaanahu wa tacaala sida dadka gobol ka mida ay markaa tilmaamaan, iyo mushrikiinta, laakiin inay yihiin addoommo ilaahay, laa yacsuuna allaha maa amarahum, wuxuu ilaahay amra aan caasinin, wayafcaluuna maa yu'maruun, laa yasbiquunahu bilqowl wahum biamrihi yacmaluun. malaka lama hormaraan ilaahay, hadal amarkiisa ayay fuliyaan. nuur ayaa laga abuuray, waa addoommo ilaahay qalqay subxaanahu wa tacaala wa malaa'ikatihi.
وكتبه إناد رميس كتبها ألا سودجي توراة إيه إنجيل زبور إيه كتاب قرآن كأ ورسله رسوشيس إناد رميس ضمان جملة أهان إناد آمنتو واليوم الآخر ما لنت ضمد إيه آخرنا إناد رميس إني جرت بحثك صوب بحيطان إيه ما لنت طبقه دتك لك لأبال مرينايو إيه مد لحاد وتؤمن بالقدر وحد إناد رميس خيره وشره خير باكو أسيبي ربي أغو مهدي قفك لكو مكينين شراكو قدعي إلهي أغو صبر سبحانه وتعالى كان بري دبك إنو كاقاض قال صدقتو ناينينكي هذا نوحو يري عن الإحسان إيشيك نبيغو وحو يري إحسانكو وإناد إلهي عابدا سيدي أذيغو أركاي أوكالي هذا أذيغ إلهي أجيد أساقا كوجيد سبحانه وتعالى وتوكل على الحي الذي لا يموت وتوكل على العزيز الرحيم الذي يراك حين تقوم والله كو أركاي مركات استاغيسي وتقلبك في الساجدين مركات سجودك قد قدوميسي إلهي وكوجيد سبحانه وتعالى إلهي لما أركا لكن أسقى وحركا لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير سداسو إلهي أهاضي سبحانه وتعالى وحنك قاضنينا إسلام كشان أركان إنو يا شنتيرو إيمان كنا إنو لحيهي إحسان كنا ركن قونية إنو مركايهي انتا كقضال ننكي وحو طاي رسولك الله محمد وإيشك عن الساعة قرمي دعيسا ساعة قيامه رسولك وحو ugu jawaabay mas'uulka iyo saa'ilku waa isugu mid saad ka tahay ayaan markaa ka ahay waaya macnaha fiima anta min dhikraha buu dhahay ilaahay maxaa kaaga sugnaaday xusuusashadeeda way ku weydiinayaan sidii adigoo yaqaan oo kale buu ku dhahay ilaahay aayad kale yas'aluunaka ka'annaka xafiyun canha sidii adigoo yaqaan oo kale waxaad dhahdaa inamaa cilmuhaa cinda rabbi laa yujalliiha liwaqtiha ilaa huwa wax faydi kara ma jira waqtigeeda ilaa asaga maahani saas ku dheh buu dhahay ilaahay idan mas-uulka iyo saa'ilku waa isugu mid ii sheeg buu dhahay haddana amaaraadkii can amaaraatiha calaamaadka lagu yaqaano an talida alammatu waa inay hooyadu dhashaa rabbatahaa gabadhii u talin lahayd qiyaamaha waxaa dhacaya in waalidka loo taliyo gabdhaha la dhalay ay taliyaan waa sida muxadisiinta gobolka mida ay ku fasireen sida maanta la taagan yahay owlaadda ayaa wax taliso waalidkii ayaa loo talina ilmihii la dhalay ayaan la adeejin karin ilmihii la dhalay ayaan loo talin karin an talida alammatu rabbataha waxaa dhici karta in loola jeeda addoontu inay dhasho sayidadeeda oo laga wado waxaa badanaya dagaalkii muslimiintu gaalada ku qaadi doonaan waxaa la soo qafaalayaa naaga fara badan waxaa loo qaybinayaa ragga muslimiinta ah mar allaala markay owlaad u dhalaan islaanta ileen waa qof lasoo qabto milkigii ninkaa gashay oo waxay ku jirtaa darajo amanimo ama addoonnimo canugtaa ama gabadha ay dhashay darajadii sayidnimaday markaa tegaysaa waay an talida alammatu rabbataha waxaad kaloo ku fahmaysaa wa an tara alxufaata kuwii kaba la'aanta socon jiray alcuraata oo qaaqaawanaa ilaan dhar la'aanta haysay alcaalata ee danyarta ahaa ee faqiiriintaee baadiyaha joogay ricaa'a ashaa'i oo ariga raaci jiray qowsaarada ahaa intay baadiye ka soo tagaanay magaalada yimaadeen yatataawaluuna ayagoo ku faantamaya filbunyaani dhismahay ku faantamayaan anaa kaa sardheer iyo anaa kaa cimaarada dheer taana haddaad aragto waa saacaddii qiyaamo calaamaadkeeda arrin gacanta lagu hayo waayo iidana intaa ka gadaal ninkii waa baxay falabistu maliyan zaman ayaan nagaaday buu dhahay uma qaala yaa cumaru atadrii man isaa'ilu ma taqaanaa saa'ilkii su-aasha i weydiinayey ayuu yidhi nebiga qultu cumar waxaan idhi buu yidhi allahu warasuuluhu aclam ilaahay iyo rasuulkiisa ayaa ku cilmi badane anigu markaa ma aqaano meesha waxaa laga qaadanaa nebigu markuu su-aal weydiiye allahu warasuuluhu aclam ilaahay iyo rasuulkiisaa ku cilmi badan maanta waxaad maqlaysaa dadka gobol ka mida haddii wax ay weydiinayaan ama la weydiiye ama ay rabaan inay cilmiga dhinac kale u leexiyaan inay dhahayaan allahu warasuuluhu aclam waxaa lasu waafaqay araddaa inay mamnuuc tahay oo maanta lagu ekaan kara allahu aclam keliya oo fii xayaatada nebiga ay ahaan jirtay allahu warasuuluhu aclam sidaa waaye ileen rasuulka markuu noolaa hadday u tiiriyaan darajo waxyi ayaa u imaanayo jiha rabbiyaa looga soo waxyoonaa saasuu markaa dadka ugu sheega laakiin hadda waa allahu aclam keliya qaala fainahu jibriilu ataakum waa idin yimid yucallimukum asagoo idin baraya diinakum diinkiina
diinkiina inuu idin baro ayuu markaa u yimid. sidaa darteed ayaa xadiidka waxa uuna tusaaleeyey ama uuna baray arrimooyin aad iyo aad markaa u wanaagsan loona baahan yahay dadka muslimiinta inay raacaan. haadaa jibriil ayuu ahaa, waa malakul jibriil, inuu amarkiina diinkiisa idin bara ayuu rabo. iimaankii, islaamkii, ixsaanka marka laysku daro ayaa diin markaa lagu magacaabaa. saasaa markaa loola jeedaa. alxadiidu athaalith, xadiidkii saddexaad, can abi cabdiraxmaani cabdillaahi bni cumar bni alkhitaabin ahaa radia allahu canhuma. asii aabiiba allah ka raadi noqdee, qaala wuxuu yidhi ninka la yidhaahda cabdullaahi bni cumar, samictu rasuula allahi, rasuulkii ilaahay ayaan maqlay sala allahu calayhi wasalam oo yaquul dhahaya, buniya alislaamu, islaamkii waa la dhisay calaa 5 5 tiirood ayaa lagu dhisay. waa shahaadati an laa ilaaha ila allahu wa anna muxammadan rasuulu llahi wa iqaami asalaati wa iitaa'i azakaati wa xaji ilbeyti iyo wa sawmi ramadaana. ramadaanka oo la sooma, rawaahu lbukhaariyu iyo wa muslimu ayaa xadiiska wariyeen. xadiidku wuxuu tilmaamayaa islaamku inuu 5 tiirood ku dhisan yahay. cumar ibni khitaab wiilkiisa waa cabdullaahi ibni cumar ibni khitaabe wuxuu yidhi, samictu rasuula allahi, rasuulkii ilaahay ayaan maqlay sala allahu calayhi wasalam oo yaquulu dhahaya, buniya alislaamu, islaamkii waxaa lagu dhisay calaa 5 5 tiirood ayaa lagu dhisay. qof walba oo 5taa la yimaada faqad tama islaamu, islaamkiisa ayuu taam yeelay. sida beydka marka la dhisayo loogu talagalay in loo sameeyo aasaas iyo tiirar ayaa saasoo kale islaamku wuxuu u baahan yahay rugniyaale iyo tiirar, waana 5taa waxyaabood. maca daalika dhismuhu ma wanaagsanaanaya ilaa in arkaano iyo tiirar loo sameeyo maahane. sidaa darteed ayaa qofka islaamnimadiisu aysan wanaagsanaanaynin ilaa inuu tiirarkii islaamka uu la yimaado maahane. waxay la mid tahay alsalaatu cimaadu ddiin, salaadu waa tiirka diinka, faman tarakahaa faqad hadama addiin, qofkii salaada ka tagaa diinkii ayuu markaa dumiyey. ilan tiirkaa waa tiir macnawi ah waaye, kii ayuu markaa dumiyey waaye. maca daalika mathal ayuu ka dhigayaa ilaah subxaana wa tacaala nebigiisa. islaamka 5taa tiir ayaa lagu dhisay. shahaadati waa qiritaan la qira an laa ilaaha ila allah, ilaahay maahe inuusan alla kala jirin xaqnimo lagu caabudo ila allah, wa anna muxammadan rasuulu llahi, muxamedna rasuul ilaahay inuu markaa yahay, iyo wa iqaami asalaati, salaada oo la hagaajiyo, wa iitaa'i azakaati, zakada oo la guto, iyo wa xaji ilbeyti, beytka oo la xajiyo. xaji ilbeyt waxaa loola jeedaa in beytka loo qasdo, iyo wa sawmi ramadaana, ramadaanka oo markaa la soomo. riwaayadaha intooda badan waxay horumariyaan soonka oo la soomo, xajkana waa ugu dambeeya oo waa rukniga 5aad. sidaa darteed xadiidku kama muuqato wax tartiib ah. tartiibtu waxay ahayd wa sawmi ramadaana iyo wa xaji ilbeyti. saasoo markaa ahaa riwaayadaha sida ay markaa ku yimaadeen bitaqdiimi alxaji cala asawm. baab tartiiba xagga xukunka ama xagga mataqaana xukunka waa sidaa, liannahu maxaa yeelay ramadaanka oo la soomo wuxuu waajibayaa xajka hortiisa. riwaayadaha badan sida ayay markaa ku yimideen. marka xadiisku 5taa inay yihiin arkaanta islaamka ayuu tilmaamaya. alxadiidu araabic, xadiidkii 4aad, can abi cabdiraxmaan cabdullaahi bni mascuudin. abi cabdiraxmaan oo kunyadiisa waa cabdullaahi bni mascuudin radia allahu canhu. qaala wuxuu yidhi cabdullaahi bni mascuud, xadaanaa rasuulu llaahi, rasuulkii ilaahay ayaa noo xadiiثeeyey sala allahu calayhi wasalam, wa huwa rasuulkuna alsaadiqu almasduuqu, mid saadiq ah waaye oo runsheeg badan oo runlow ah, almasduuqu ee markaa loo rumeeya hadalkiisa. wuxuu dhahay nebiga, ina axadakum, axadkiin yujmacu waxaa lagu jamciyaa khalquhu, abuurkiisa, fii batni ummihi, hooyadiis caloosheeda ayaa abuurkiisoo dhan lagu jamciyaa 40 yowman, 40 maalmood, nudfatan waa dhibic biyo ah. 40 maalmood nudfadii iyo wuxuu ahaanayaa dhibicdii biyaha ahayd. uma kabacdi yakuunu wuxuu ahaanayaa calaqatan xinjir, midla daalika, gobol yar oo dhiiga oo adag ayuu noqonayaa oo xinjir ah. calaqatan midla daalika, intii oo kale waa 80 maalmood, waa 40 labaade. uma yakuunu
kadib wuxuu ahaanayaa mudqatan gobol yar oo hilib ah midla daalika sidii oo kale. waa 4aad oo maca daalika 120 maalmood uu ku yahay. uma yakuunu mudqatan midla daalika. uma intaa ka gadaal yursalu waxaa loo soo dirayaa ilayhi xaggiisa almalaku, malag ayaa loo soo dirayaa. fayanfuqu wuxuu ku afuufayaa fiihi nudfadii macnaha mudqigii cadkii hilibka ahaa gudihiisa alruuxa, ruuxdii ayuu ku afuufayaa. wayu'maru waxaa la amrayaa b4 kelimaatin 4 kelimadood qoritaankeeda ayaa la amrayaa. bikadbi risqihi risqigiisa qoritaankeeda iyo wa ajalihi ajashiisa iyo wa camalihi camalkiisa inuu qoro. wa shaqiyun aw saciidun waa laba mid ka mid ah waaye inuu yahay mid shaqi ah oo kaafir ah oo nasiib darsaday oo nasiib xun inuu yahay. aw saciidun ama inuu yahay mid saciida oo liibaanay oo khayr iyo wanaag gaaray. labadaa midood ayaa loo qora. mida koowaad risqiguu cuni lahaa, ajashii uu ku dhiman lahaa, camalkuu qaban lahaa iyo sida uu gebagabadiisa noqon lahayd inuu yahay shaqi iyo inuu yahay mid saciid ah. fawallaahi ilaahay baan ku dhaartuu dhahay nebiga, alladii allihii laa ilaaha hayruhu asaga ma ahana mid kale uusan jirine. ina axadukum axadkiin la yacmalu waa camal qabanayaa bicamali ahli اljannati dadka ahlu jannaha camalkooda ayuu qabanaa. xataa maa yakuuna ilaa aysan u ahaanin baynahu asaga beynkiisa iyo wa baynaha jannadii beynkeeda aysan u jirsanin ilaa diraacun dhudhun maahana wax kale. say ugu dhowaatay ama say ugu dhowdahay oo ay leeyihiin dadku hadduu sidaa ku dhinto isla markii jannow gela asaga iyo jannadii ilaa aysan u jirsanin ilaa diraacun dhudhun maahana wax kale. fayasbiqu waxaa ka hormaraya calayhi korkiisa alkitaabu kitaabkii loo qoray ee shaqinimada ahaa intuu caloosha hooye ku jiray. fayacmalu waa isgedinaa marka khawaatimtii markii la gaaro iyo cimrigiisa dhammaadkiisa. fayacmalu waa camal qabanaa bicamali ahli nnaari dadka ahlu naarka camalkooda. fayadkhulaha markaasuu naartii gala. waayo khawaatimtiisaa waxay noqonaysaa suu'u lkhaatima. wa ina axadukum axadkiin la yacmalu waa camal qabanaa haddana bicamali ahli nnaari dadka ahlu naarka camalkooda. xataa maa yakuuna ilaa aysan u jirsanin ama aysan u ahaanin baynahu asaga beynkiisa iyo wa baynaha naartii beynkeeda ilaa diraacun dhudhun maahana wax kale. say ugu dhowdahay hal dhudhun oo kale ayay u jirsanaysaa. fayasbiqu waxaa ka dhaqaya oo ka hormaraya calayhi korkiisa alkitaabu kitaabkii loo qoray markuu ku jiray hooye caloosheeda oo ahaa inuu ahlu janno yahay. fayacmalu bicamali ahli ljanna ahlu jannaha camalkooda ayuu qabanaa. fayadkhulaha markaasuu jannadii gelayaa. rawaahu lbukhaariyu wa muslimu muslim iyo bukhaari ayaa xadiis ka wariyey. xadiidku waxa uu tilmaamayaa ama uu leeyahay fawaa'id aad iyo aad u fara badan. rasuulka wuxuu ka warinayaa ninka lagu magacaabo cabdullaahi bni mascuud inuu nebigu yidhi inuusa ahaa uu qiray inuu saadiq masduuq ah yahay. waa mid run badan hadalkiisana la rumaysta ilan waxa uu ku hadlaa ma aha wax cindigiisa ka yimida. waxa uu ku hadlaa wax kale ma ahan buu yidhi ilaahay ilaa waxyun yuuxa waxyi loo waxyoonayo xagga ilaah ka yimid maahane. sidaa darteed ayuu rasuulku wuxuu yidhi buu dhahay axad kastoo idinka mid ah. ina axadukum axadkiin yujmacu waa la kulmiyaa khalqigiisa fii badni ummihi wuxuu ula jeedaa waxaa lagu jamcinayaa bayna maa'i arajuli waalmar'a naagta iyo ninka biyahooda intaa ka gadaal ayuu ilaahay welad ka abuurayaa. waa ixtimaal in xadiiska macnihiisa uu sidaa yahay. ina axadukum yujmacu khalqahu khalqigiisa waxaa lagu jamciyaa fii badni ummihi hooyadiis caloosheeda sida ilaah tilmaamay subxaana wa tacaala. inaa khalaqna alinsaana min nudfatin amshaajin insaanku waxaan ka abuurnay biyo amshaaj ah oo hooyo iyo aabba markaa ka yimid. sidaa darteed ayuu ilaah aayad kale ku yidhi khuliqa min maa'in daafiq waxaan ka abuurnay biyo daafiq ah.
kulanka waxaa dhici karta muraadka in loola jeeda min albadani kulli badankiisa oo dhan ayaan ku jamcinaa hooyo caloosheeda. tadawur iyo heerar ayuu soo maraa insaanka. 40 maalmood waa dhibic biyaa ayuu yidhi. ilaan insaanka waxaan ka abuurnay ayuu yidhi ilaahay min nudfatin, dhibic biyo ah oo maca daalika sulaalo ah oo min maa'in mahiin, biyo xaqiira xaggooda markaa ka yimid. sidaa darteed ayaa 40 maalmood uu raximka ku ahaanayaa biyihii. uma yakuunu, intaa ka gadaal wuxuu ahaanayaa buu dhahay nebiga calaqa, waa xinjir, sida ilaah tilmaamay iqra bismi rabbika aladii khalaq, khalaqa alinsaana min calaq. insaankii xinjir ayaan ka abuurnay buu dhahay ilaahay. waa 40ka labaad midla daalika. uma yakuunu mudqa, mudqadu waa cad yar oo hilib ahoo qofka intuu qaato hal mar uu calaalin karo, kaasaa markaa loola jeedaa. waa sida ilaah tilmaamnay fakasawna alcidaama laxman, hilibka lafihii waxaan ku daboolnay cidaam iyo laxmi buu yidhi ilaah subxaana wa tacaala. gobol yar ayuu haddana ahaanayaa oo mudqaa midla daalika. waa 43 120 maalmood marka uu yahay. intaa ka gadaal ayaa waxaa loo soo diraa malag ayaa loo soo dirayaa. riwaayad kale waxay tilmaantay malag ayaa raximka loo wakaashay. nudfa markay ku dhacda raximka, malaga ayaa kafkiisa ku qabanaya, markaasuu dhahaa ay rabbi ilaahayow muqallaqa miya mise hayra muqallaq, macnaha mid la qalqaya miya mise waa mid dhicis ah. haddii muqallaq uu yahay raximka ayuu ku sugaa, meesha ayay ku sugnaanayaan. intaa ka gadaal ayuu malagu leeyahay rabbiyow madakara mase waa unfa, shaqiyo miya mase waa saciid, fama risqu wama alajal, maxaa waaye risqigiisii ajashiisa, wa biayi ardin tamuut, arladuu ku dhimanayaa. intaa ka gadaal ayaa loo qorayaa asaga oo hooyadiis caloosheeda markaa ku jira. dadku markaa labay u kala qaybsamayaan. rasuulku waa dhaartay oo wuxuu yidhi fawallaahi aladii, macbuudkii xaqa ahaa ayaan ku dhaartay, alladii laa ilaaha hayruhu, ilaah asaga aan ahayn uu jirina, ina axadakum layacmalu bicamali ahli اljanna, qofaa camal fiican samaynaya, camalka ahlu jannaha ayuu samaynaa. xaqiiqa ma aha, laakiin waa fii maa yabdu annaas, sida dadka ayagu u muuqato. ilaa asaga iyo jannadii aysan isku jirsanin ilaa diraac ma ahana wax kale. waxaa ka hormaraya kitaabkii loo qoray hooya caloosheeda markuu ku jiray, oo ah inuu ahlu naar yahay, fayacmalu bicamali ahli nnaari. markaasuu dadka ahlu naarka camalkooda samaynayaa, saasuu ku dhimanaa, fayadkhulaha, markaasuu naartii gela. wa ina axadakum, axadkiina layacmalu bicamali ahli nnaari, dadka ahlu naarka camalkooda ayuu samaynayaa. waa sida dadka u muuqata. xataa maa yakuuna baynahu wa baynaha ilaa diraacun, ilaa dhudhun aysan u jirsanin. fayasbiqu calayhi alkitaabu, kitaabkii loo qoray hooyo caloosheeda markuu ku jiray, oo ahaa inuu nin fiican yahay oo ahlu janna ayaa ka hormaraya. kii yaa ka dhaqaya, fayacmalu bicamali ahli ljanna, ahlu jannaha camalkooda ayuu samaynaa, fayadkhulaha, markaasuu sidii jannada ku gelaa. sidaa darteed camalada waxaa meesha laga qaadanaa in loo baahan yahay khaatimada sida ay markaa noqoto. qofkii khayr ku khaatimaystana khayr ayuu ku soconaa, qofkii xumaan ku khaatimaystana shar ayaa markaa u dambaysa. maca daalika qof walba waxaa la rabaa inuu ogaado mar walbana ilaahay uu ka baryo subxaana wa tacaala in khaatimadiisa la wanaajiyo. qof walba khawaatimadiisa say ahaata ayuu markaa noqona. maca daalika qofka waa loogu talagalay ahlu naarnimo iyo shaqinimo iyo saciidnimo labadaba. maalin maalmaha ka mida ayay nebigu janaaso duugeen. saxaabada qabriga agtiisa ayay fadhiyeen. waxaad u malaysaa huduuga iyo deganaanshaha ka muuqata in madaxyaalkoodu ay shimbiro saaran tahay. nebiga ulbaa koora u watuu dhulka ku xarxariiqaayey. markaasuu yidhi axad adinka idinka mid ahi ma jiro ilaa waxaa loogu talagalay ama maqcad ayuu ku leeyahay jannada iyo naarta. sidaa darteed qof walba meeshii loogu talagalay ayuu ilaahay geynaa. saxaabadu waxay dhaheen rasuulkii allow hadday sidaa tahay maan kitaabkeenna iska tala saaranoon camalada ka tagno. maya ayuu yidhi nebiga, icmaluu fa kullu muyasarin limaa khuliqa, camal qabta qof kasta wixii loo qalqaa loo fududeeyey. fa amaa man acطaa waاtaqaa wasadaqa biاlxusnaa fasanuyasiruhu lilyusraa.
qofkii ilaah ka cabsado khayrka iyo wanaagga ku dadaalo oo mtaqaana aan bakhiilin oo diinta raaca waxaa loo fududeeyey tii fududeed waa jannada wa amaa man qof allaala qofkii bakhiila wa amaa man bakhila wastagna wakadaba bilxusnaa tan wanaagsanna beeniya fasanuyasiruhu lilcusraa tii culayska badneed ayaa asagana markaa loo fududeeyey idan khawaatimada mar walba la fiiriyaa qof walbana waa inuu ilaahay ka baryaa in khaatimadiisa markaa la wanaajiyo alxadiid alkhaamis xadiidkii shanaad can ummi lmu'miniina mu'miniinta hooyadood waa ummi cabdillaahi caaishata radia allaahu canha ilaahay ha ka raadi noqda caaishee qaalad waxay tihi qaala rasuulullaahi rasuulkii alla wuxuu yidhi sala allahu calayhi wasalama man axdatha qofkii ku soo diriya fii amrinaa amarkeenna haadaa ee kan ah maa ku soo dara laysa minhu aan ka mid ahayn fahwa raddun waa mid lagu celinaya rawaahu lbukhaariyun wa muslimun ayaa xadiidka wariyey wa fii riwaayatin limuslimin riwaayad kale oo muslima waxay ahayd man camila qofkii camal qabta camalan camal oo laysa calayhi amruna amarkeena aan waafaqsanayn waa diinkeennee fahwa raddun asagana waa lagu celina ummilmu'miniin ayaa warinaysa mu'miniinta oo dhan ayay hooye u tahay caaisha waa derajada ixtiraamnimada loola jeedaa amaa khalwaynta iyo musaafaxadii waxyaabaha kale loolama jeedo ixtiraamidda ay ixtiraamayaan ama ay ka dhex mutaysatay ayada iyo dumarkii nebiga qabay saasay ugu magacaawdeen inay mu'miniinta hooye u yihiin wa aswaajuhu ummahaatuhum sida ilaah uu yidhi waaye nebiga naagihiisa mu'miniinta hooyooyin ayay markaa u yihiin ummi cabdillaahi caaisha wax ma dhalin ayaa la yidhi ilaahay ha ka raadi noqdee ummi cabdillaahi waxaa loo yidhi waa cabdullaahi ibnu zubayr ayaa loola jeedaa waa wiilkii ay asma dhashay waa walaasheed oo habaryar ayay markaa u tahay carabta aad u jeclaan jirtay kunyada noocaasa ummi iyo abuu in la yidhaahdo maca daalika wiilkaa habaryarta ay u tahaa loo nisbeeyey ummi cabdillaahi ilaan habaryar ayay markaa u tahay alkhaalatu bimansilati alum habaryartu waxay joogtaa booska hooye ayuu dhahay nebiga qolaa waxay qabaan caaisha inay uur qaaday laakiin ay dhicisay oo dhicis ay markaa ka noqdeenay soo riday laakiin war sugan ma aha cabdillaahi waxaa dhashay oo asmaa caaishata waaye radia allaahu canhaa qaala waxay tihi caaisha qaala rasuulullaahi rasuulka alla wuxuu yidhi sala allahu calayhi wasalama man axdatha fii amrina axdadka waxaa loola jeedaa qof allaala qofkii ku soo dara cibaadaadkeenna iyo diinteenna xagga qusliga waysaqaadka soonka salaada iyo ficil walba oo ilaahay amray subxaana wa tacaala nebigana bayaaniyey wax aan ka mid ahayn oo nebiga sheegin qofkii ku soo cusboonaysiiya oo ku soo dara diinkeenna maa laysa minhu waxaan ka mid ahayn fahwa raddun laga yeeli maayo wax laga aqbalayaa ma aha qof allaala qofkii bidcanimo keena xadiidku waxa uu la dagaalamayaa bidcada iyo waxyaabaha dadku ay gadaal ka keenaan dadka gobolka mida ay ku magacaabaan inay cibaado tahay xaaladaha noocaasoo dhan waa wax aan markaa la oggolayn aadaanka marka uu dhacee intaan la aqimin ka hor oo aqimku soo dhow yahay mu'adiniinta gobolka mida ayaa waxay aqriyaan rabbi salli waxyaaba la mid ah waa bidca ma ahayn shay nebiga ka sugnaaday 12 mawliidka marka la gaaro dadka gobolka mida ixtifaal ayay sameeyaan oo nebigan xusnaa ayay dhahaan waa bidca waxyaabahaasoo dhan ayaa markaa loola jeedaa oo ay dadku u malaynayaan inay diin tahay qofkii ku soo dara maa laysa minhu fahwa raddun marduud waayo mid lagu celinayo ma laga yeelaayo taa waa qofkii ku soo dara qofkii sameeya ka waran kaana lama iloobin rawaahu albukhaariyu wa muslim wa fii riwaayatin limuslimin man camila camalan qofkii camal qabta laysa calayhi amruna amarkeena aan ahayn buu dhahay nebiga fahwa raddun asagana marduudun calayhi waa lagu radinayaa sidaa darteed ayaa waxaa la rabaa qofku inuu itibaac sameeyo wamaa aataakum arasuulu faquduuhu wamaa nahaakum canhu fantahuu wixii rasuulka idinkeenayna qaata wuxuu idinka reebayna ka taga wattaquu llaha ina allaha shadiidu alciqaab waxaa loola jeedaa wax adiga gadaal aad ka kaysan kartaa ma jiro waxaad maqlaysaa shaygan waa bidca waa shay ila fiicnaaday ha kula fiicnaada hadduu fiicnaan lahaa ilaahayaa amri lahaa nebigaa caddayn lahaa shaygu si kastay u fiican yihiin haddaysan islaamku sal ku lahayn wax diin ah ma aha qofkii keenana waa lagu celina fahwa raddun ay marduudun calayhi waa mid
korkiisa lagu naqaayo wax laga aqbalaya malaha waayo macnaha saasaa markaa loola jeedaa shaygan way ila fiican tahay iyo shaygan xaaladiisa sidaa ah wax qofka laga maqlaya ma aha qofkii camal qabta camalkaasna aan diinta alla ku sugnayn fahuwa raddun mid lagu celinayo marduud ah waaye xaggiisa bidca waxaa la yidhaahdaa wax walba oo lasoo cusboonaysiiyo nebiga aan ogeyn gadaalna markaa ka yimid waxaa laga yaabaa dadka waxyaabo fara badan inay isaga qaldamaan waxaa laga yaabaa inay dhahaan baabuuradu nebigu ma ogeen ee waa bidca maraakiibtu nebigu ma ogeen waa bidca saacadaha dadka u xihan nebigu ma ogeen waa bidca iyo waxyaabo markaa la mid ah marka uu rasuulku tilmaamayay wuxuu dhahay man axdatha fii amrinaa haada amarkan haadaa marka la leeyahay waa wixii diina ayaa markaa loola jeedaa waa wixii dhaqana oo ilaahay amray subxaanahu wa tacaala maca daalika waxyaabaha ku camalfalkee awaamirta iyo sharciga ah qofkii ku soo cusboonaysiiyo oo ku soo daraa markaa laga yeeli maayo bidcadana sideeda waxaa lagu fasiraa shayga aan soo tilmaanno waa wax walboo cusub oo markaa gadaal laga keeno waayo qofkana markaa laga yeeli maayo ma jirta wax la dhaho bidca xasano ah waaye waxaad maqlaysaa shaygan waa bidca xasano ah kani waa bidca xasanoo cumar ibni khitaab ayaa dadka isku soo aruuriyey salaada taraawiixda hal imaam ayuu u yeelay waa bidca xasano ah xaaladda noocaasi wax ka jira markaa ma laha bidca xasano wax la dhahana ma laho rasuulku wuxuu yidhi fii kulli bidcatin mumtaqana dalaal bidco walba dalaal waaye oo waa shay dhunsan bidca xasano iyo bidco fiican iyo bidco sayi'a ma jirto salaada taraawiixdee dadka la jamciyey oo jamaaco lagu tukadayna cumar ma bilaabine nebigaa bilaabay sala allahu calayhi wasalam ilaa ramadaanku markuu dhashay asagaa tukaday saxaabadaa gadaashiisa ku tukatay qolo kalaa soo maqashay ilaa dhowr habeen masaajidka uu soo buuxsamo dadka qaadi waaye intaa ka gadaal nebiga habeenkii dambe ma u soo bixin say u fadhiyeen buu salaada fajarkaa u soo baxay waa ogaa buu dhahay waxaad samayseen mana iga qarsoonayn waxaan ka cabsaday inuu ilaahay arko sida aad u samaynaysaan cibaadada taraawiixda intaa ka gadaal laydinku waajib yeelo ood samayn weysaan ka gadaalna laydin halaagaan ka cabsaday ee baxa guryihiinna ku tukada dadow salaad waxaa u fadli badan salaada qofka gurigiisa uu ku tugto ilaa waajibka ma ahane marka salaada taraawiixdaa bidca cumar bilaabay ma aha nebigaa sidaa u bilaabay balse waa la joojiyey waxaa loo joojiyey ayadoo laga cabsanayo in la waajib yeelo oo dadku ay samayn waayaan waa naxariis nebiga xaggiisa ka ahaatay laakiin markii nebiga dhinto dadku ay kala dugtukanayeen wax kaloo la waajib yeelayna uu jirin cumar dadkii isu jamciyey saasay markaa ku timida jamac cumar bilaabay ma aho bidca xasana markaa ah bidcana meel allaala meeshay ku timaado waa baadi iyo dhumitaan man axdatha qofkii ku soo dara fii amrinaa amarkeena haadaa ee kan ah maa laysa minhu waxaan ka mid ahayn fahuwa raddun ay marduudun waa mid korkiisa lagu celinayo rawaahu lbukhaariyu wa muslim wa fii riwaayati limuslim man camila camalan qofkii camal qabta laysa calayhi amrunaa amarkeena aan ahayn fahuwa raddun asagana waa mid lagu celinayo ayuu dhahay nebiga alxadiidu saadis xadiidkii lixaad can abi cabdullaahi annucmaan bni bashiirin ahaa radia allaahu canhuma asaga iyo aabbihiiba allah ka raadi noqdee qaala wuxuu yidhi samictu rasuula allaahi rasuulkii ilaahay ayaan maqlay sala allahu calayhi wasalam oo yaquulu dhahaya ina alxalaala xalaashu bayinun mid cad waaye wa ina alxaraama bayinun xaaraantuna way caddahay xalaasho iyo xaaraanta mugdi ma kala saarnee ilaahay waa kala caddeeyey laakiin wa baynahumaa beynkooda waa xalaasha iyo xaaraamta waxaa u dhaxeeya umuur oo mushtabihaat ah umuur isku eg ahoo laa yaclamuhunna aysan aqoonin kahiirun min annaasi in badan oo dadka ka mid ah laa yaclamuhunna kahiirun min annaas marka la leeyahay waxaa laga fahmayaa dad yar oo ummadda ka mida ayaa yaqaana mutashaabihaadku inuu xalaal yahay iyo inuu markaa xaaraam yahay faman ittaqaa qofkii ka cabsadoo iska ilaaliyo iska dhowra ashubahaati shayga shubahaadkaa faqad istabara'a waxa uu ilaaliyey lidiinihi wa cirdihi diinkiisii sharaftiisa mutashaabihaadka faraha qofkii ka qaado iska ilaaliya xalaal ha ahaadaan xaaraam ha ahaadaane iska dhaafa diinkiisa iyo sharaftiisa ayuu ilaaliyey waman waqaca qofkii ku dhaca fi shubahaati shubahaadka waxyaabaha dadka shabiiha ka gala waqaca fi lxaraami
xaaraamtii ayuu ku dhacay ama ku dhacayaa ka raaci qowsaarkii oo kale yarca raacaya arigiisa xawla alxima meelaha la ootay gaararkooda kii ku raacayay oo kale yuushiku waxaa soo degdegaya an yartaca fiihi inuu dhex daaqa markii dambe haddii aad ka dhaqaajiso xoolahaagoo bannaanka aad u daaqgeyso meelaha shubahaadka ama meelaha la ootay ku dhici maayo laakiin goof la ootay gaararkiisa markaad ku daajiso marka dambe waa laga yaabaa arigu inuu dhex galo sidaa darteed shubahaadka ninka gelgelaya waxay u badan tahay inuu xaaraamta ku dhaco alaa hooyaay alaa waa kelima tambiih ah waa baraarujin hooyaay waayo macnaha dadow kaca soo baraaruga oo fiiriya waxaa laydiin sheegay wa inna likulli melikin melik kasta dowlo walba xima ayuu leeyahay meelo uu ootay alaa wa inna xima allaahi ilaahay meelaha uu ooto u oodanoo goofafka u ah maxaarimuhu maxaarimtiisa waay ilaahay dhul iyo goof ma oodanina waxa u wareegsan oon laga geli karin waa wuxuu isaga xaaraantinimeeyey alaa hooyaay wa inna fi ljasadi jasadka mudqatan cad yar oo hiliba ayaa ku yaala oo idaa salaxa hadduu hagaagsanaado uu fiicnaado salaxa aljasadu kulluh jasadka oo dhan uu fiicnaanayo bani aadamka cad yaroo hilib ah oo hal mar la calaalin karaa ku yaala oo jasadkiisa ku dhex sugan hadduu cadkaa fiicnaado jasadkii oo dhan ayaa fiicnaanaya wa idaa fasadat hadduu hallaabo cadkaana fasada aljasadu kullahu jasadkii oo dhan uu hallaabayo alaa wahiya alqalbu waa qalbiga waaye ayuu dhahay nebiga rawaahu albukhaariyu wa muslim bukhaari iyo muslim ayaa xadiid ka wariyey culimmada waxay ikhtilaaf ku noqdeen fii xaddi alxalaali waalxaraam abu xaniifa wuxuu leeyahy alxalaal maa dalla daliil waa wixii deliil uu tusiyo xalaal ahaashihiisa imaamu shaafici wuxuu leeyahy alxaraamu maa dalla daliilu calaa taxriimihi sidaa darteed wax walba oo xaaraamnimadiisa uu deliil caddeeyo waaye xalaashu waa wax walba oo deliil uu caddeeyaa xalaal ah wuxuusan caddayn faraha markaa laga qaada maca daalika xadiidka waxaa warinaya nucmaan ibni bashiir waa abi cabdillaahi wuxuu yidhi rasuulkii ilaahay ayaan maqlay oo dhahaya ina alxalaala bayinun wa ina alxaraama bayinun xalaashu waa bayin oo way caddahay oo wax walba oo xadiid iyo aayad ay caddeeyeen in la cuno ama la cabo ama la labisto ama la qaato ama la isticmaalo ah wa ina alxaraama bayinun xaaraantuna way caddahayo waa wixii deliil uu caddeeyo in laga tago oo la cunin oo la cabin oo la guntanin waajib markaa ay tahay laakiin wa baynahumaa waxaa baynkooda ahaaday umuurun mushtabihaatun umuur mushtabihaad ah oo bayna alxalaali waalxaraam ah waa umuur mushtabih ah bilxalaali waalxaraam sidaa darteed ayaysan aqoonin in badan oo markaa dadka ka mid ah wax badan oo dadka ka mida ma yaqaanaan haddii rasuulku uu yidhi laa yaclamuhunna kahiirun min annaas wax yar oo dadka ka mida waa fahmayaan wayna yaqaaniin faman ittaqa shubahaat meesha waxaa laga qaadanaa shayga shubahaadka gala inay dadku ka dhaqaaqaan in layska ilaaliyo oo qofka si uu diintiisa iyo naftiisa iyo sharaftiisa u ilaaliyo waa inuu shubahaadkao dhan ka fogaado faman ittaqa shubahaati faqad istabara'a wuxuu ilaaliyey diinkiisa iyo sharaftiisa waa qof allaala qofkii raadiya oo iska ilaaliya mutashaabihaadka naftiisa iyo diintiisa ayuu u raadiyey beri ahaasho iyo wuxuu markaa ku dhowrsado xataa hadduusan isticmaalin waa inuu faraha ka qaado oo waa ku dhowrsanaana maxaa u isticmaali weysay hadhow lama dhahayo sidaa darteed ayuu rasuulku dhahay qofkii iska ilaaliya shubahaadka wuxuu ilaaliyey diinkiisa iyo sharaftiisa waman waqaca fi shubahaat qofkiisa shubahaadka ku dhaca waqaca fi lxaraami xaaraamtuu ku dhacaa ka raaci yarcaa xawla alxima erijirkii iyo qowsaarkii xoolihiisa ximaha iyo meelaha goofafkee la ootay gaarkiisa ku raacaya oo kale saasuu la mid yahay qofka shubahaadka isticmaala yuushiku an yartaca fiihi waxaad degaysa ee dhexdhexaysa marka dambe inuu daaqa alaa wa inna likulli melikin melik kasta ximo ayuu leeyahay meelaa u oodan qof walboo duwal ah ama dawle ah waxaa u oodan melig walba xima alaa wa inna xima allaahi ilaahay ximihiisa maxaarimuhu maxaarimtiisa waaya buu dhahay nebiga dadka waxaa la rabaa marka inay iska ilaaliyaan matalan haddii la yidhaahdo ilaahiina ka cabsada oo raaca waxyaabahan sameeya nebiga saasuu yeeli jiray sunno lee waayaa laga yaabaa qofku inuu ku dhaho sunno lee waaye uu saa uga tago haddaad dhahdo iska dhaaf waxyaabahan karaahiye lee waayo kulee waa iska samaynaa
marka xaaladda noocaasa ma la rabay qofka wixii shubahaad ah iyo wixii karaahiye ah kulli waa inuu ka dhaqaaqa wixii suno ah iyo wixii waajibana inuu markaa sameeyo alaa ina fi ljasadi jasadka mudqatan ayaa ku jira gobol hilib ah oo hadduu wanaagsanaado salaxa aljasadu kulluhu jasadkoo dhan uu ficnaanayo waidaa fasadat hadduu hallaabana fasada aljasadu kullahu alaa wahiya alqalb qalbiga waaye ayuu yidhi qalbiga asagaa ubucu ah waa boqorka qalbiga jasadka ayaa lagu tilmaamaa sidaa darteed wax walba waxaa loo baahan yahay qalbiga in laga wanaajiyo qofka qalbiga ka bukooda dhibaato fara badan ayuu leeyahay sida ilaah tilmaamay fii quluubihim maradun fazaadahum allahu marada quluubtay ka jiran yihiin jirada ilaahay ha u siyaadiyey subxaana wa tacaala sidaasuu ilaahay munaafiqiinta ku tilmaamay maca daalika wax walba waa qalbiga sida ilaahay tilmaamay subxaana wa tacaala qalbiga haddii uu wanaagsanaado jasadkoo dhan ayaa fiicnaanaya maa asaaba min musiibatin ilaa biidni illaah dhib kuguma dhaco ilaa ilaahay idinkiisa maahane waman yu'min billaahi yahdi qalbahu qofkii ilaahay rumeeye qalbigiisa waa hanuunay saasuu ilaahay tilmaamay qalbigaa laga soo qaatay sidoo kale ayuu ilaah yidhi fain amina bacdukum bacda haddii qaarkiin qaarka kale uu aamino falyu'addi aladii tumina amaanatahu kii la aaminay amaanadiisa ha guta ilaahayna ha ka cabsado yuusan amaanada qarin waman yaktumhaa fainahu aatimun qalbahu qofkii qariya qalbiga ayuu ka dembaabay ayuu dhahay ilaah subxaana wa tacaala qalbiga keligiis waxaa loo sheegay hadduu qalbiga xumaadana jasadkoo dhanaa xumaada hadduu qalbiga fiicnaadana jasadkoo dhan ayaa markaa fiicnaada qiyaamana waxaa wanaag gaaraya man ata allaha biqalbin saliim qofkii ilaahay ula yimaada qalbi saliima alxadiid assaabic xadiidkii 7 can abi ruqayata tamiim bni aws الداري أها رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال وحو يري الدين نصيحة دينتو والنصيحة أيو داي قلنا وحان أدهني بو داي أبي رقية لمن يي أدهي رسولك إلهي وقال نبي وحو دهي لله إلهي أي أدهي إي ولكتابه kitaabkiisa iyo walirasuulihi rasuulkiisa walia'immati almuslimiin muslimiinta a'immadooda iyo wa caamatihim caamadoodaba a'ima waa hogaamiyaalka caamaduna waa dadka markaa loo taliya rawaahu muslim ayaa xadiiska wariyey naseexadu waa kelima jaamica macnaheeda waxaa loola jeedaa waa shayga qofka loo sameeyey iyo kan samaynaya labadaba ay anfacayso matalan hadday maradu kaa jeexanto maradaadii aad tasho waxaa la leeyahay hebel maradiisii waa u naseexeeyey sababtu waxay tahay asagana way anfacaysaa tolitaanka maradiina markaa way anfacaysaa waaye sidaa darteed naseexo waaye qofka xaaladda noocaasa ayaa loola jeedaa maca daalika rasuulku wuxuu yidhi diinta oo dhanba waa naseexo ayay ku dhisan tahay diinta islaamka dadka muslimiinta inay isku naseexeeyaan inay khalalka iyo waxyaabaha xumaanta iskala dagaalamaan sidoo darteed ayoo kale ayaa lagu magacaabaa qofka haddii malabka uu saafi ka dhigo wax barax ahna uusan ku darin waxaa la leeyahay hebel malabka waa u naseexeeyey macnaha wuu wanaajiyey waaye wax kale uu ku soo darayna markaa ma jira rasuulku wuxuu dhahay addiinu nasiixa addiinu nasiixatun diintu waa diin naseexo ah waa diin naseexa ku dhisan qulnaa liman yay u tahay ayaa nidhi qaala lilaahi ilaahay ayuu yidhi subxaana wa tacaala ilaahay ayay u tahay sidee bay ilaahay ugu tahay subxaana wa tacaala waayo ilaahay qina cani nasxi naasixiin dadka naseexaynaya naseexadooda waa ka kaaftoomaa subxaana wa tacaala sidaa darteed ilaahay ayay u tahay ayuu yidhi oo waxaa loola jeedaa qofka mar allaala marka ilaahay wuxuu rabaa adduunka in lagu caabudo keligii wuxuu rabaa inaan shirkii waxyaabo kale loogu samaynin idan qofka bini aadamkaee adduunka jooga hadduu sidaa yeelo arrintii ilaahay uu rabay waa loo sameeyey qofkiina waa sameeyo way anfacaysaa ilaahay ayuu aaminaa shirkiga ayuu ka hufaa ilxaadka iyo waxyaabaha uu ka inkiray sifaadkiisa ayuu ka tegaa wuxuu u sugayaa sifaad kaamil ah iyo jalaalnimo dhammaanteed waa nasahayaa nasahitaan aan nusqaan lahayn wuxuu u istaagayaa taacadiisa alla dartiisuu wax u jeclaana dartiisuu wax u naca dartiisuu wax u xiriirina dartiisuu wax u goyna wuxuu qirayaa nimcada ilaahay siiyey wuxuu samaynayaa arrimooyin fara